Arsenal dabada ay hore u soo haysaa guul kale oo muhiim ah ayay gaartay xilli labada lugood lagu dhagay City ka soo agdhaweyd 8 dhibcood ayay fiinta ku joogtaa waa masaafo badan haddaan dabayluhu dhanka kale isula rogin Arteta maalmaha soo socda sidan oo kale ay 2003-2004 ugu hogaamisay 8 dhibcood 20 kulan kolkii la ciyaaray horyaalka oo markii ugu dambeysay oo ay sida yeelaan tan iyo xagaagan waxaana ay xilli ciyaareedkaas horyaalka ku qaadeen 11 dhibcood mar kale ay markii ugu horeysay tan iyo Abriil 2004 Arsenal ku hogaamisay qaybta koowaad 2 gool derbiga waqooyiga London waa bandhig kale oo Arsenal ay ku muujisay sida ciyaaryahannadeeda ay ugu abaabulan yihiin ilaashiga hoggaanka kabtanka Martin Odegaard waxa uu Arsenal u dhaliyay goosha labaad taas oo ka dhigan TC8 ee diraacda waxaana uu noqonayaa dhexda goolasha ugu badan dhalinaysa kana qayb galaysa Premier League marka loogu daro 5 gool ee caawiyaha ka yahay guud ahaan 13 gool waxaana uu dhaafay dhammaan dhalintii iyo caawintii uu sameeyay sanadkii tagay goosha koowaad ee Arsenal iyaduna waxa ay ahayd taariikh markii ugu horeysay ayuu gool iska dhaliyay Hugo Lloris kadib 354 kulan oo uu ciyaaray horyaalka Ingiriiska Gunners 2-0 ayay ku dhaafeen Tottenham waxaana ay sii wateen guulahooda haddaba Arsenal cid celisa ma lahayaa